xildhibaanadii ugu badnaa ayaa shir xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho kuwaasi oo soo saaray war-saxaafadeed ay kaga soo horjeedaan qorshaha xukuumadda oo doonaysa in ay maanta wax ka bedel lagu sameeyo qodobo ka mid ah dastuurka dalka. dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee xildhibaanadu ay shalay ilaa xalay ay sameeyeen ayaa muujinaysa in madaxweyne xasan sheikh iyo xukuumaddiisu ay lumiyeen saaxiibtinimadii baarlamaanka, taasi oo khatar gelin karta xukuumadda dalka. guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inuu la dhacsan yahay qorshaha madaxtooyada ee wax looga bedelayo dastuurka dalka, waxaana xildhibaanada labada aqal lagu wargeliyey inay beri iskugu yimaadaan kulan wadajir ah si loo ansixiyo wax ka beddelka dastuurka. xildhibaanada Muqdisho ku shiraya oo aad u tiro badan ayaa caddeeyey mowqifkooda qorshaha xukuumadda ee wax ka beddelka dastuurka, iyagoo ku doodaya 3 qodob oo kala ah: 1. in xukuumaddu ay ka faa'iideysanayso xildhibaanada mucaaradka ah kuwoodii ugu badnaa oo ka maqan Muqdisho, kuwaasi oo kala jira Garowe iyo dalalka dibaddiisa. 2. inay dood ka qabaan kulamada labada gole ee sida wadajirka ah loo qabto maadaama uusan jirin xeer hoosaad midaynaya kuwaasi oo u baahan sida ay u dhacayaan in laga soo saaro xeerar sharciga waafaqsan. iyo 3 oo ah qodobada qaar ee ku jira dastuurka ee wax laga bedelayo oo ay dood culus ka taagan tahay, kuwaasi oo xukuumaddu ay doonayso inay ka ansixiso baarlamaanka dalka. ugu yaraan 70 xildhibaan oo qaarkood muxaafid ahaa, kuwa mucaarad ah iyo xildhibaano dhexdhexaad ahaa ayaa ka soo muuqday kulamadii shalay, halka kuwo kale ay saakay ku soo wajahan yihiin magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan kulankan wadajirka ah ee baarlamaanku ku ansixinayo qorshaha wax ka beddelka dastuurka kumeel gaarka ee Soomaaliya. madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa horey ula kulmay siyaasiyiinta mucaaradka ah kuwaasi oo talooyin badan ku biiriyey qorshihiisa wax ka beddelka dastuurka, balse waxay u muuqataa in xukuumadda madaxweyne xasan sheikh ay isku miidaaminayso go'aankeeda iyadoo aan ku tashanayn codad tiro badan, ayna muuqato in mucaaradku uu ka dhaqdhaqaaq badan yahay kuwa xildhibaanada ah ay dowladdu wadato. madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya sida madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka ayaa lagu dhaliilayaa qorshahan oo ay gadaal ka riixayaan ee ku saabsan wax ka beddelka dastuurka xilli uu dalku ku jiro marxalad xasaasi ah oo khilaaf qarka u saaran gacanka hadal uu kala dhexeeyo dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya.